أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. ardayga faacida quraanka inoo soo jeediyay maanta waxay noo joogaa sheekhuna Sheekh Maxamed Aadan runtii kelmado dhaxalgala oo diiniina insha Allah inoo soo jeedin doona ardayda waxa loo baahan yahay iyo dhamaanteen yaanagaba inaynu ka faa'iideysano isla markaana aynu weelayno wixii la furo hadii la raado sheekhan ku soo dhaweynaya ku soo dhaw sheekh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاهد الفرقان maamulkooda macallimiintooda iyo ardaydooda waxaan uga mahadnaqayaa mahadda ilaahay kadib aan ilaahay u mahadnaqayno oo aynaan ammaantiisa koobi karayn sida wanaagsan ee maanta ay fursadda ii siiyeen inaan ardayda kelmad u jeediyo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra iyadoo xiisada idin sugayaan ma jecli inaan aad idinku dheereeyo laakiin inaan idin yara waaniyo ayaan jecelahay. waxaan ka hadli doonaa da'diina markuu ardaygu joogo xusuustiisa way dheertay. waxaa laga yaabaa kelmad maalin macallin ama sheekh idin soo booqday oo idinku yidhaahdo inuu weligii xasuusnaado oo ay anfacdo, waayo aniga isagu imaka wixii shalay la ii sheegay mararka qaarkood inaan ilaaba laga yaabo, laakiin wixii markaan da'diina ahaa la ii sheegay inaan aad u xasuusto ayaa laga yaabaa. waxaan aad u xasuustaa macallin ka mid ah macallimiintaydii madrasadda igu dhigi jiray, madrasaddaanu dhigan jirnay oo Sheekh Baraawo la odhan jiray, imika ma jirto. masaajidka Ibraahim Dheera dhisay halka ka soo horjeeda imika dukaamada laga dhigay halkaasay ahayd. saa macallin noo dhigi jiray, macallinkaas xataa waan yaraayo ama 8 jir ama 7 jir meelahaasaan ahaa. markaasaa wuxuu igu yidhi war hoy fursadda ka faa'iideysta, jaaniska aad haysataan ka faa'iideysta, haddaydun ka faa'iideysan weydaan maalin kale idin garanay. kelmaddii sidaa imika aan idinku khudbadaynayo ayuu noogu khudbadeeyey, kelmaddii way gashay. haddaad ka faa'iideysan weydo maalin kale aad garan. dad badan oo waxaad arkaysaa maanta wax la soo baray waalidku ku dadaaleen, macallimiintu ku dadaashay, maamul ku dadaalay, oo haddana suuqa aad ku arkaysa markii ay waaweynayeen inay zero yihiin, iyo dad fursaddii ka faa'iideystay oo maanta adduunka meel wanaagsan kaga jira, aakhiradoodii iyo adduunkoodiiba. maanta waxaan jecelahay kelmad kooban inaan idinka idhaahdo ardayay, naftaydana runtii ay u baahan tahay, macallimiintu u baahan yihiin, maamulku u baahan yahay, meel sare inaad ka fikirto. waxaa idinku jira culimadii mustaqbalka, waxaa idinku jira dhakhaatiirtii mustaqbalka, waxaa idinku jira culimadii ku takhasustay ay noo baranaysay beeraha, kuwii kombiyuutarka, madaxdii mustaqbalku idinka idinku jiraan. waa idinka iyo kuwa idinla midka ah. waxaa la doonayaa markaa hankaagu inuu sareeyo, inaanu meel yaro suka ku soo koobmin. nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku rabayn jiray
in meel fog ay wax ka eegaan mustaqbalka aakhiradooda iyo adduunyadooda bal xadiidkan nabiga sallallahu alayhi wasallam ee saxiixa ila eega nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa sida abi muusa al-ash'ari uu warinayo nabiga ayaa maalmaha kamida waxa uu yimid oo marti uu noqday nin reer miyiga nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ninkii martida loo ahaa ee reer miyiga ahaa nabi muhammad aad buu soo dhaweeyay nabi muhammadna sallallahu alayhi wasallam dabeecad buu lahaa waana dabeecada la doonayay inaguna inaynu yeelano qofka sharfa ee maamuusa isna uu sharfi jiray dadna nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri markii ay u dhamaatay martidii uu marti galiyay ninka reer miyiga ah ayaa nabigu wuxuu doonay inuu isaguna wanaagii loo sameeyay dib u soo celiyo oo isaguna ninkan isagana soo dhaweeyo wuxuu iitina adiguna marna soo booqon oo kaalay ninkii baa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam u yimid markaas wuxuu ku yiri nabigu alayhi salatu wasalaam sal haajatak maxaad u baahan tahay sheega bal waxaad u baahan tahay ninkii baa wuxuu yiri naaqatu narkabuha wa a'nusun yahlibuha ahli bul waxaan u baahanahay hal aan gaadiid ka dhigano korno walaayimka awrka la koraay barigaana geela ugu muhiimsanaa neef geela oo aan ka dhigana gaadiid aan ka dhigto gaadiid iyo xanyar midhad riya ah oo reer kulistaan ayaan u baahanay xadiisku waa saxiix waxa soo saaray xaakim fi al-mustadrak وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني ديد النبي عليه الصلاة والسلام وهل كانوا سعوديين إيجا وديد النبي عليه الصلاة والسلام نكيد ما إنه راديو نافير يحير رياء النبي عليه الصلاة والسلام مو قنعين سحابتي سنو ربيني سحابي الناس سحابتي سكمدها ريرمي بوساها arrinkii uu doonayay marka inuu saxaabada baro ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu saxaabiga ka jeestay ayuu su'aashii wuxuu ku jiheeyay saxaabadiisa oo dhan deedna wuxuu ku yiri a'ajastum an takunu mithla ajuzi bani israa'il miyaad ka caajisteen inaad noqotaan oo kale islaantii reer bani israa'il war heerkeedo kale inaad gaadhaan miyaad ka caajisteen saxaabadu ma garanayaan islaanta reer bani israa'il may maqal cid u sheegtayna ma jirto laakiin marka la doonayo macalinku ardayga inuu sharxo wax waa in intibaahiisa iyo dareenkiisa uu qabtaa imika waxaad is wada weydiinaysaan islaanta reer bani israa'il ee uu nabigu saxaabada weydiiyay maxay ahayd soo maaha su'aashaasi way saxaabaduna may garanayn hadaba u fiirsada nabiga ka jawaabayo islaanta cadaynaya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yiri saxaabadii ma kuuri wama ajuzu bani israa'il oo islaanta reer bani israa'il maxay ahayd nabi allah deedna nabigu wuxuu yiri qisadii buu bilaabay qisada la soco wuxuu nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu reer bani israa'il saarayay ee uu masar ka saarayay ayaa waxa dhacday dallu dariiqa jidkii ay masar uga baxayeen iyo dariiqii ay marayeen baa ka lumay meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan bay garan waayeen dariiqina uu ka lumay dabadeedna culimadoodii ka waaweynay ee reer bani israa'il ayaa waxa uu ku yiri maxaa dhisiya dariiqii ka lumay maxay naga siya deedna culimadoodii baa waxay yiraahdeen dardaaran baanu ka haynaa culimadayadii hore oo ah nabiyullaahi yuusuf baa dardaaran ka tagay waa reer bani israa'il waa ambiyadii hore reer bani israa'il waxa uu ka tagay oo uu yiri markii geeridu ku soo xaadirtay baa wuxuu yiri ballan waxaan idin kaga qaadayaa reer bani israa'il oo inaydaan ka bixin masar hadday isa ka baxdaan inaad anigana lafahayga iyo meydkayga ka saartaan qabriga marka jawaabta su'aashu waxa weeye ay ugu jawaabeen wayna iska baxnay inagoo aan meydkii ka sii saarin maxay qabrigii inagoo ma baxnay saadirteed baan u lunay nabi muusa wuxuu ku yiri
oo yaa garanaya qabrigii nabiyullaahi yuusuf halka uu ku yaallo waxaa la yidhi islaan oo reer bani israa'iila cid buu u diray markaasay u timid wuxuu ku yidhi waxaad i tustaa qabrigii nebi yuusuf waxay ku tidhi dhayaldhayal arrinkaa ku bixin maayo xataa tucdiyanii xukma ilaa aada xukun iyo shardi iyo ballan ii qaado mas-uul xukunkaagu waa maxay maxaad doonaysaa ballanka shardigan aad igu xidhay iyo xukunkan aad iga doonaysaa muxuu yahay waxay tidhi akuunu macaka fi ljanna haddaad doonayso inaan jannada kugula rafiiqo oo aduu halkaad gasho aan kula galo waan ku tusaya haddii kale ina kala jooji nebiyullaahi muuse nebi muuse arrinkii baa ku cuslaaday markuu ku cuslaaday ayaa ilaahay xaggiisa looga waxyooday oo ilaahay baa u waxyooday wuxuu yidhi an acdihaa xukmahaa ballanka u fuli buu yidhi oo xukunkeeda sii waan ku siiyey buu yidhi na tus in sha allah akuun macaka fi ljanna ayay tiri wuxuu yidhi waaye macaygaad jannada ila noqonaysa gabadhii baa kaxaysay islaantii meel yaroo biyo fadhiyaan ayay yimaadeen oo biyo isugu soo ururin waxay tiri biyaha ka dhura biyihii baa laga dhuray markaasay tiri qoda markaasaa la qoday markii la qoday baa waxaa laga soo saaray nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam ayaa laga soo saaray lafihiisii iyo meydkiisii mar alla markay soo saareen ay kor u qaadeen ay dariiqii ka lumay u saxmay dariiqii baa u saxmay xadiidka maxaad ka fahanteen maxaan se ka fahmay maxayse culimmadu ka sheegeen koow saxaabada nebigu wuxuu ku rabeeyey in hankoodu sarreeyo gabadhan intay adduunyo dhaaftay ayaa waxay leedahay aakhiraan doonayaa iyo wanaaggeeda weliba ma odhan jannaan doonayaa inaan gale halka ambiyada halka nebi muuse waa ulul casmi min arusul rususha kuwa ugu sarraysaa halkaad gaadhaan doonayaa inaan gaadho saxaabada wuxuu nebigu barayaa hankiinu ha sarreeyo oo ilaa heerka niyeeya adduun yar ha ku soo meeraysanine xan yar iyo farsamo yar iyo adduun yaro adduunyada ha dhaafo oo hankiinu aada ha u sarreeyo arday saxaabada nebigu sala allahu calayhi wasalam hankoodu wuu sarreeyey waxaan doonayaa inaan idiin sheego saxaabi ka mid a asxaabtiisii ayaa maalmaha ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey 70,000 oo ummadda ka mida oo jannada ku gelaya bilaa xisaab toos bay u gelay iyaga lama xisaabinayaba saxaabi hankiisu sarreeyey oo cukaasho la yidhaah ayaa wuxuu nebi allow waxaad ilaahay ii baridaa inaan ka mid noqdo balaakada saxaabigaas 70 fursad buu nebigu sheegay qaali ah 70,000 oo la xisaabinayn ee jannada gelaya saxaabigii baa farta oo nebi allow waxaan doonayaa inaan ka mid noqdo anta minhum buuri ka mid baata saxaabi kala soo kacay anigana waxa lagu barayaa macallimiinta iyo ardayda nidaamka wax jaysadaha loo bixiyo haddii imkaanidaad maanta waxbaan bixinaya oo arday yidhaahdo waan arrinka waad heshay dhammaantiin maxaad doonaysaa anna dee markaa jaa'isadii bilaa qiimay noqonaysa jaa'isadii bilaa qiimay noqonaysa deedna nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sabaqaka biha cukaasha maanta waa lagaa hor qaaday fursaddaada sug marka jaa'isadda bal saxaabigaasi siduu jaa'isadda u qaata eeg waxaan doonayaa hankaygu wuu sarreeyaaye jannada inaan galo laakiin jannada iyadoo laysoo baarbaaray oo laysoo niqaasho arrimahayga loo fiirfiirsaday ma doonaye waxaan doonayaa 70 aan xisaab lahayn inaan noqdo hankeennu inuu halkaa maraa la doonaya maalmaha ka midana waa xadiis kale oo saxiixa kaasi muslim buu bukhari buu kana ku jira waxa dhacday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa albaabada jannada ka sheekeeyay albaabada jannada ee 8 ayuu ka sheekeeyay markaasaa wuxuu yiri nabigu alayhi salaatu wassalaam qofkii ahlu salaadka ahaa ee salaada hagaajiyay dhalinyaro salaada ilaaliya salaada waqtigeeda ilaaliya salaadu arkaanteeda leedahay ilaaliya waa dhigateene shuruudeeda ilaaliya waqtigeeda ilaaliya ixtiraamkeeda ilaaliya masaajidkeeda ilaaliya wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam albaab la yiraahdo albaabka salaada ayaa jannada kamid ah waxa looga yeedhay dadkii salaadoodu wanaagsanayd waxa kale oo jira buu yiri albaab jihaada
dadkii diinta dhiigooda u daadiyay ee u halgamay kuwaana albaabkaasaa looga yeedhayaa waxaa jira qaar albaabka loo yidhaahdo rayaan dadka sooman ee soonkooda ku dadaali jiray faral iyo sunnaba ayaa iyagana looga yeedhay ahlu siyaam baabu rayaan ka gala baabka cokanaanta ka gala la odhanaya halkaasuu albaabada ka tiriyay nebigu fursadda in albaabada jannada dhan looga yeedho waxa hankiisa ay gashay abubakar radiyallahu anhu abubakar baa dabeedna wuxuu yiri oo nabi allah ma suurtagal baa in looga yeedho albaabadaas oo dhan qof wuxuu yiri ha waliba waxaan rajaynayaa abubakar oo kainaad ku jirto abubakar wuxuu doonayaa albaab walba inuu ka galo hankiisu janno u galo quramaha hankiisu albaab quru ka gala maaha albaabada jannada oo dhan iyo khayrkooda in looga yeedho maxaa digataa ku diiday abubakar inaad ku dayato nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam haddaad janno doonaysaan waxaad weydiisataan ilaahay jannatul firdaws ilaa jannooyinka ta ugu sarreysa oo firdawsa xataa jannada ta ugu sarreysa hankaagu waa inuu halkaa noqdo axaadiistaasi in qofka hankiisu sarreeyo ayay ku tusaysaa arrimaha adduunyada xataa adduunyada laftigeeda waa in hankaagu sarreeya hankaagu adiga ma waxa weeye maalin walba inay waalidku ku daba joogaan toos soco ma intaasaa hankaagu ma waxa weeye inaad in yarun wax barato hankaagu ma waxa weeye ummaddan inaad bedesho oo aad wax ku soo kordhiso hankaagu adiga muxuu yahay ardayo ummadda waxa wanaajiya oo hagaajiya arday idin la mid oo fakaray in yaro imka buuhood la jooga ayaa diyaarad sameeyay ma daawateen maalma inankii yaraa diyaarad buu sameeyay qaabkeedii buu sameeyay waa in yaro reeb buuhood la ah inankii ummadda caalamka imaka inta muslimka waa la garaacaya waa la tumaya lama doonay inay soo baxaan laakiin imka dawladdan Turkiga Erdogan waa nin la yaab leh waxa uu ogaaday ilmaha yar dawladdiisu in wax ku jiraan wuxuu inaan ka yaray keena inaan ka yaraa wiigii dhaweed waxa loo sameeyay xaflad baa loo sameeyay tiifiyadan ka daawanay inaan ka yaraa shalay mise daraad wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga inaan ka yaraa la kulmay waa daadiina madrasadiisa oo si maca salaameynaysa wiigii dhaweed baan daawanay shalayna wuxuu la fadhiyay wasiirka arrimaha dibadda ee maxay Turkiga waa shalay ama daraad waxaan laga yaabaa inaan ka yar aqligiisii markay arkay inay leeyihiin diyaarado badan caalamul islaami ha ku soo kordhiyo muslimka waxa taro oo maxaa ku diiday adigoo reer furqaana adiguna kani diyaarad buu ku fakariyay caalamkan oo dhan inaad bedesho oo aad dalka wax badan ka qabato oo aad noqoto dhakhtarkii wanaagsanaa sheekhii wanaagsanaa balaamiyadeena eega suuqeena eega kii wax bedeli lahaa inuu adiga noqdo maxaa ku diiday bal ila dhageysta nabiguna adduunyada sida aakhira loogu dadaaliyo in loogu dadaalo ayuu nabi maxamed inuu dardaarmay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadith oo saxiixa ayaa wuxuu yiri in qaamati saa'a wa biyadi ahadikum fasila fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha bal hadithka oo fiirsada wuxuu nabigu alayhi salatu wassalam hadii saacadii qiyaame ay dhacayso soo adduunyadu maalin dhamaan mayso soo suur la afuufi maayo haddii waqtigii qiyaamuhu dhacayay uu hadda soo galay oo aan waxba ka harsanayn in yar ama daqiiqada mooyaane gacantaadana waxaa ku jira fasiilada ma taqaanaa fasiiladu waxa weeye waa geetimireedka laantiisa ama abaqaalkiisa geetimireed baad haysaa laantii oo abqaala oo aad beeraysa yaani hada saacadina imka lagu dhufanaya hadaad ka gaarsiin karto ayuu nabigu yiri inaad dhulka ku abqaasho oo aad beerto inta aan suurta lagu afuufin wuxuu yiri samee su'aal baad isweydiinaysaa geedkani muxuu yahay dhirta waad barateen science-ka wax kamid ah dhigan oo biology-ga wax ka garan maysaan dhirtu isku mid maaha dhirta qaar baa waxa ay ku baxaan si dhaqso ah مثلا tamaandho iyo basal iyo 3 bilood bay ku baxayaan iyo 4 bilood iyo waxaan dhaamisan ma laakiin geed timireedku wuxuu ku baxaa hadaad imka akhridan cilmiga 5 sano ama 7 sano ayuu geedkaas ku baxaa hada suurti wala afuufaya geedka aad imka beerayso ma intifaacsanaysid waxba kuma taray
qiyaamada ka dhacayaba nabi maxamed wuxuu ku leeyahay beer hadad ka gaarsiin karto waa 7 sano ama 5 sano kadib uu baxaya qiyaamada baa la galayba dam caalamkii uu isku daatayba leesh muxuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidoo leeyahay waxa la doonayaa adigoo adduunyada camiray inaad ka baxdo inaad adduunyada intifaacsata oo adigu wax walba aad ka heshaa rasmiga maaha laakiin waxa rasmiya adigoo adduunyadii wanaajiyay oo dhirtii hagaajiyay oo laamidii hagaajiyay oo leedkii hagaajiyay oo masaajidkii hagaajiyay oo tacliintii hagaajiyay oo computerkii iyo wixii aad oo social media in dawqiya hagaajiyay ila ina yaro kula mid baabiye social media ayna wareeriyay waxaan la daawanaya ee xumaana inaan yarun baa u kacay dibeedna aqligii dadka ka qabsaday oo maxaa ku diiday inaad aqliga ka qabsato oo adiguna social media waxa wanaagsan islaamku wuxuu doonayo waalidku wanaagsan wuxuu doonayo dalku wuxuu doonayo u baahan yahay inaad adigu gaarsiiso miyuu ka aqli badan yahay maya waliba waxa aqli badan ilmaha diinta bartay ee maadigana fahmay ayaa ka aqli badan waa macruuf waa la yaqaan dadka ugu sareyn jiray iskuulada waa dadka diinta bartay tacliinta kalena bartay ma jeceli inaan idinku dheereeyo arintaydu waxay ahayd inaan maanta idin baraarujiyo dalkani waxa horumarin kara intii naas oo dadaasha adduunka iyo aakhiraduna ma kala maarmaan waxa la yiraahdo adduun iyo waxa la yiraahdo aakhiro oo islaamku rumaysan yahay la kala goynaya ma jirto ama diin iyo dawlad la kala saaraya ma jirto waa sheekho siyaasad kama hadli karo waa siyaasiyo masaajid kama hadli karo ma jirto islaamku waa midun nabi maxamed hogaamiye ummaduha siyaasa waa hogaaminta hogaamiye wanaagsan buu ahaa diintooda dhisay buu ahaa akhlaaqdooda dhisay buu ahaa cilmigooda dhisay islaamkuna isaga ayaa horumarka sameeya sharaftana waxa lagu gaaraa maxay diinta lagu gaaraa dardaarankaygu waxa weeye horta hankiinu ha sareey waa inaad wada PhD noqotaan laakiin PhD da imika jaamacadaha laga helo waxa ka wanaagsan arrin ka wanaagsan baa jiro lagu barakoobo oo aniga iyo da'dayga weyn iyo culimadan waaweyn ee Sheekh Maxamed Daahir Rabiic uu kamid yahay iyo macallimiintiina waaweyn ay kamid yihiin halkaan wax ku baranay anigu jaamacada ma aanan helin waqtigayagii waaweyn oo diintana bara laakiin jaamacadaha ugu waaweyn oo ugu baradka badan waka masaajidka idinka soo horjeeda Soomaaliya arag sirta laga helo weey masaajidada ku xidhnaada duruusta barta casharadiina ku dadaala aqoon sareysaha noqoto idinku is ixtiraama idinka umada bedeli karaya haddaad si yar u fakartaan waligiin horumar maysaan jazaakumullahu khayran aad baan idinku mahadnaqayaa dhamaantiin assalaamu calaykum himadiisa liidata qof walba sidoo iska dhigu miska noqda wacaynka ilaahay dadka wuxuu kula dhaqmaa sideeda haday ku sharcigu ogol yahay qof haduu gaajo u dhimanayo inuu wax siiyo gaajada iga saar waa sax laakiin haduu shaqo ka dhigto saasun buu ku soconaya himadiisa caynkaasi ah Soomaa laakiin haddaad hankaaga weynayso meel fog tigsato wad gaadhaysaa waa wax saas weey waxba shaqada ku dheerayn maayo waxa inagu filan xadiistii nabiga sheekhu inuu akhriya waana inagu filan laakiin waxa qalbiga wax ku soo dhacday oo sheekhu i xusuusiyay sheeka barina sheekhu wax loo dhigay inooga sheekay sheeka ma aan soo koobay idinku badan maayo sheekada wallahi xusuustay soo sheekhu ma lahayn marka yaraanta la xusuustaa wixii lagu sheegal xusuustaa soo ma odhanin بربان نبى وحنا شيخ أسوي وحنا وش يقول نين مسكينة نين بايبا كلفتني كا ما حسن مساكين تشقي السنة سما هاي لا دني يرو شقي سنة يوين بحسيب ونيري عاوي يقول دني يرو مرة ساعة وش شقي سنة يروح على شقي سنة هذا محل نقول نسمر كذا ويناته هذا محل نقول نسمع متبح وش شيء يا من تاجر بان نقول يا العقبان يلنا يا من وحنا نقول يا دكتور بان مدحوا لي هذا جيب سنة كم ما تسد oday yaro miskiin yaro iska oday ma ahayn laakiin in xoog ah buu haay aniga maxaad noqonaysaa bay ku raadeen rasuul aan waxaan doonayaa boqorka inantiisa inaan guursado ya qosol bay u daateen dhac way ka maadsanayaan isagana waa ka dhab niyada ugu jirtaa in boqorka inantiisa guursado waxa oo ninkii intuu maalin baa boqorkii u tagay gurigiisa wuxuu sileenta aad soo weydiisay waa miskiin wali waa miskiin albaabkii guriga weynaa ku jira albaabku sii yimaadaayo maxaa doonaysaa adigu boqorkan doonaya socod adiga ma lagu ma ogolaa uu ku soo noqnoqda meel buu la eriyaa
loo miskiin yar iska cawlana markii la eriyay maalintii dambe buu boqorka markuu sii galiyay soo albaabka sii marmarayo ku arkay miskiinka yar fadhiyo maalin buu soo noqonayay maalintii bal igu yeedhan ninka waa loo yeedhay markaasuu yidhi maxaad doonaysaa asuu yidhi waxaan doonayaa gooni kuula faqe madaxdiisii baa la fadhida gooni inoo saarde qol gaaraynagee boqorka qolkiisii yaraa horu geeyey maasuu maxaad doonaysaa adeer waxaan doonayaa inaan taada inaan siiso inantaada inaad ii guurisaan doonaya intuu xanaaqay baa wuxuu yidhi miiskii marka miis buu fadhiya isagoo hoos fadhiya hoostiisa jiijiid buu ka soo saaray lacag ka buuxdo soo inanteeda ninka lacagtaa haysta iyo dahabkaa haysta baa inanteeda soo doonay miskiinka yar bay iga doonayay as adeer deer waa anba nin baan ahay ii guuri kuu guurin ma albaab ka bax buu yidhi wuu iska tegey marka hankiisaa weyn soo maaha qofka ilaahay dadka wax ku siiyaa hanka weyn waxaa isagoo maalin xeebta iska maraya bombu xeebta wuxuu ka helay cambarka ma taqaanaa cambarka waa qaali badda soo tuurta cambar weyn buu helay cambarkiibuu soo qaatay oo dabeetana suuqu geeyay uu iibso lacag badan buu ka helay lacag badan markuu helay waxa uu dhistay fooq weyn buu dhistay magaalada ka dhistay ninkii shalay miskiinka ah dadka dawarsan jiray xaj hebel baa la yidhi xaj hebel oo magac buu yeeshay oo ma garanaysaa markuu ninka lacag yeeshay maalintii dambe nin la yaqaan noqday markaasaa dabeeto boqorkii uu tagay intii buu doonanaya boqorkii buu ku tagay albaabkii oo dee isagoo dhar wanaagsan xidhan maxaad hayd adigu ninkan waxaan ahay taajirkan gurigan labaana soo gal baa la yidhi boqorkii buu galay markaas waxaan doonayaa maxaad u socotaa adeer ninkaasaan ahay dee gurigaa dheer dhistay oo taajirka caynkaasaan ahay oo dee inantaadaan doonaya mana saasaata soo dhowow ha wuu soo dhoweeyey inantiisiina wuu guuriyey inantii markuu guursaday ayuu berigii dabadeed ninkaa isbarteen yidhi maad garanaysaa ninkii berigii aad odhan jirtay miskiin baa too inanteeda ku siin maayo dee ninkii baan ahay ma garan maysa ninkii baan ahay buu yidhi marka waxay noqotay de qiso cajiibay noqotay soo maaha ninkaa bal himadiisa eeg ilaahay wax ku siiyey han weyn muso hanku wax weyn weeye baahida way ku kaliftay laakiin hankiisu waa weynaa hankiina wuu gaadhay laakiin hadduu miskiinka sida kuwa meelahan istaagan kale u ahaan lahaa ee miskiinnimada aan ogolan miskiinnimo ku shaqaysan lacag ka sameeyaan halkaa ma gaadhi karo marka waa sidaas waxa weeye hanka waa la weynaystay ilaahayna waa la baryaa dee waryaa ilaahayna waa la baryaa ilaahay waxaan weydiisanaa tawfiiqdan weydiisanaynaa hanka inuu inoo weyneeyo wax fiican ayna siiyo hankeena wanaagsan oo ilaahay wax inoo siiyaan ilaahayna weydiisan